munaasabadan oo ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay isla markaana lagu soo bandhigay dhismo cusub oo lagu sameynayo masaajidka Abuubakar ee ku yaala wadada Sigistirad ee xaafadda Islii. waxaa munaasabadaasi lagu qabtay gudaha masaajidka kaasoo ay kasoo qayb galeen hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalkani Kenya Aadan Barre Ducaale iyo xildhibaan Yuusuf Xasan Ganacsate culimo awdiin iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. ugu horeyntii waxaa munaasabadaasi daahfuray Sheekh Maxamed Cabdi Umar oo sharaxaad dheer ka bixiyay dhismaha masaajidka iyo lacagta ku baxaysa intaba. masaajidku wuxuu ku yaalaa wadnaha xaafadda Islii suuqeeda weyn ee Garissa loo yaqaano ayuu wadnihiisa ku yaalaa. saas daraadeed mar walba waa mashquul, salaadahana mar walba waa buuxaa. wuxuu u baahday marka masaajidkii in dib loo dhiso. waxaa laga dhisayaa masaajidka oo shantiisa doloodba ka dhismi doonaa biidnillaahi tabaaraka wa tacaala sida uu plaankii qorshu yahay. laba basementi ama laba dabaq oo dhulka ku jirta iyo midka dhulka ah iyo 7 dabaq. masaajidka kharashka uu ku dhismayo markii la qiimeeyay waxay ku qiimeeyeen qolyahan injineerinta ee PQ-ga markii la sameeyay taqriiban lacag ay ku qiyaaseen 1 bilyan iyo 200 milyan bay ku qiyaaseen. 1.2 bilyan ayaa lagu qiimeeyo shilinka Kenya. dadkan faraha badan ee meeshan fadhiya ee nin walba laga yaabo ka ugu liita ayay gabadhi ku xidhan tahay. waa dad fara badan marka la sii qiyaaso. anagu ganacsato iyo in laga ganacsado ayaa bani aadmigu warta qaybsay gabigeedaba. waxaan leeyahay ganacsatadii waan ballan qaaday, waxaan jeclaan lahaa inta laga ganacsado ayaguna inay ballan qaadaan masaajidka inay wax ka dhisayaan. ugu dambeyntii waxaa munaasabadaasi ka hadlay hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalkani Kenya Aadan Barre Ducaale iyo xildhibaan Yuusuf Xasan. waxay shacabka Soomaaliyeed ugu baaqeen inay qayb ka qaataan dhismaha masaajidka waasay hadalka u dhigeen. marka meel fog baan soo gaarnay waxaan leeyahay aan soo baxno 280 milyan ay haray ma badna waa bixin karnaa. shisheeyo uma baahnin, taageero dibadeed uma baahnin, annaga ayaa bixin karna oo dhisi karna dhameystiri karna masaajidkan. nin kasta maskiin iyo tujaar nin kasta waa inuu ku bixiyo shilinkiisa masjidkan sifa uu Ilaahay guri kaaga dhiso يوم الآخرة نقول إلى كذا نسو وحكون درسو مساجد كليتو. محمد جامع بلالي كلسن تي في نيروبي.